السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشرة تحنيا شاء كورونا فيروس. سيدا كو موقتبا موقال كاني أما 10 كانوا عن وكلاء كورونا فيروس و10 عصر وأنا 10 كي وهم أي أنسو ديديو runtiina waxay daba taagan tahay ankadkii aan sameeyay ee asxaabta intooda ugu badan ay iga dalbadeen in barnaamij taxanaha aan soo daayo. waxaan u mahad celinayaa runtii asxaabta page-kayga ku xiran ee motivation-kaygu siisay una codeysay in muuqaal noocan oo kala ah inaan soo duubo. waayo haddii adinku eedan u codeyn lahayn ma yeelan lahayn motivation muuqaal noocan oo kala aan ku diyaarsado sidaasina aan ku soo gudbiyo. saas darteedu waan idinkaga mahad celinayaa runtii in badan. intaa wixii ka dambeeyay sida ku muuqataba muuqaalkani wuxuu noqon doonaa muuqaal taxana ah. waxaan uga hadli doonaa coronavirus-ku molecular cell biology-giisu iyo sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa coronavirus-ku origin-kiisu asalkiisa halka uu ka bilaabmay sida uu anaga noo effect garanayo. coronavirus jinkeena markuu soo guda galo muxuu ka qabtaa yani maapka coronavirus-ku dhan baan casharkan uga hadli doonaa. laakiin waxaan aniga uga hadli doonin coronavirus sida media oo kale ama sida dhaqaatiirta oo kale astaamihiisa iyo halkuu ka bilaabmay iyo wadanku hadda yani laga helay iyo sidoo adduunku ugu faafi karo sidee baan inagu uga fogaan karnaa. waxyaabahaas anigu shaqadeeda ma kamana hadli doono. kaliya waxaan u baahanahay inaan ku fahamsiiyo waa maxay coronavirus. yani cudurro badan anaga na soo ataaganay coronavirus kaligiisa ma cudurro badan oo asaga la mid ah jiro HIV-ga kamid ah yani cudurro badan oo sida Ebola kamid ah cudurrada wali aanan daawada loo helin sida cancer-ka kala kamid waxyaabahan anagu jinkeena ku dhaco yani mar walba way soo laabtaan qof walba ku dhacaan bani aadamku waa cudurro jiro. cudurradani asalkoodu sidee bay bani aadamku awood ugu yeeshaan inay effect gareeyaan? cudurradani halkee bay ka bilaabmaan? yani sidee bay bani aadamku iyo nolosha dhan ku qarnabi karaan? waayo waxaan ogsoonahay coronavirus cudurkan uu kamid yahay waa cudurrada bani aadamku noloshiisii gilgelay oo cabsi weyn ku hayo. waayo dunida oo dhan ay cagaha u taagan tahay ama ay ka baqaysaa viruskan inuu ku fido. qofkii viruskan lagu arkana waa la istaajiyaa oo meelaa lagu xabisaa yani meelaa lagu xiraa karantiina. saas darteedu virus noocan oo kale oo halistaan ah iyo virusyada la midka ah ee bani aadamku effect gareeya origin-koodu halkee anaga nooga imaadeen? sidee bay awood u yeeshteen inay bani aadamku effect gareeyaan? waxyaabahaas anigu aan ka hadli doonaa oo laakiin kuma sheegi doona astaamaha iyo China inuu ka dilaacay iyo dadku effect gareey iyo calaamadaha lagu arko. taas waa topic-yada dhaqaatiirta maadaama aniguna dhakhtar aan ahayn topic-aygu maaha. taariikhdu maantuna waa 22 bisha labaad ee Febraayo sanadka 2020. topigan coronavirus-ka ee musalsalka ah wuxuu ka koobnaan doonaa 6 qaybood. dabcan 6 jabtan xitaa leh. qaybta koowaad waxaan inagu uga hadli doonaa general introduction oo ah maanta topigan inagu ka hadli doono. waayo 6dan qodob ee ku muuqata mid walbo hal muuqaal oo qaasan ka sameyn doona. muuqaalkaasaan ku faahfaahin doonaa. muuqaaladu waxay noqon doonaan general introduction oo ah hordhac guud viruskan coronaha wuxuu yahay iyo virusyadan inagu inta badan na baabi'iyo. general introduction yani hordhac guud oo faahfaahinan ka bixin doona waxyaabaha ay yihiin iyo meeshay ka imaadeen iyo sida anaga noo effect gareyn karaan iyo inta bani aadam ay baabi'iyeenba. qodobka labaadna waxaan kaga hadli doonaa astaamaha guud ee coronavirus-ku iyo virusyadaba. waayo virus marka lagu dhaho astaamuu leeyahay coronavirus-kuna astaamuu leeyahay. coronavirus-ku astaamaha qaasku uu ku yahay uu leeyahay iyo virusyada astaamaha ay leeyihiin baan kaga hadli doonaa. sidaasina waxaan ku noqon doonaa dad microbiology-gu basigiisa virusyada wax badan ka fahmin. baan haddii aad barato virusyada astaamaha ay leeyihiin astaantu waa sifada haddii aad baratana topigaasi oo dhan wuu ku kaafinayaa. sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa topiga saddexaadna kala sooca coronavirus-ku. waayo coronavirus maanta wax bilowda maaha. dad badan waxaa laga yaabaa inay ku fakarayaan wax cusub oo hadda un la arkay inuu yahay. coronavirus 60meeyadii jiray yani ilaa maantana wuu jiraa. saas daraadeedu coronavirus-kii jiray iyo kan maanta jiro waxyaabo qaas oo yar yar ku kala duwan yihiin. kala duwanaanshaha maxaa keenay? coronavirus-kii 60meeyadii jiray ama coronavirus-kii 2012 jiray ama 2000 bilaabmay iyo kan maanta 2019-ka yani waa maxay farqiyadan u dhaxeeya? coronahan familkan anagana baabi'iyo ama sidee buu virusyadan uga duwan yahay? virus marka lagu dhaho coronavirus marka lagu dhaho asal ahaan waxa dareemaysaa waa qayb kamid ah viruska laakiin
bah kala ah oo coronavirus ah si kooban topican classification waxaan inagu ku baran doonaa xididkan ama family-gan coronavirus-ka ah waayo coronavirus-ku waa family oo dhan oo virus-ka ka mid ah family-gan jinsiyadu u kala baxo iyo jufada iyo laamuhu u kala baxo dhan sidoo kale waxaan sheegi doonaa jufada annagana weerartay ee virus-kan nagu keentay yacni virus-kan maadaama laamo kala duwan u kala baxo qaybta annagana ataaganaysay ee bani aadamkii iyo xayawaanada ee maanta dunida dhan gilgishay baan ku falanqayn doonaa laamuhu u kala baxa oo dhanna waan baran doonaa sidoo kale tan qodobka afraad waxaan kaga hadli doonaa coronavirus-ka iyo evolutionna kama hadli doona hadda kuma falanqayn doono topican laakiin waa faahfaahin kooba ka bixin doona oo virusyada iyo evolutionka khaasatan coronavirus-ku xoogana waxaan saaran doonaa coronavirus-ku waayo virus-ku waagii hore jiray lixdameeyadii iyo midkii dhaxaba iyo midkii sacuudiga lagu arkay intoodaba kala duwanaanshaha u dhexeeya qaankood qaanka kale viruskii waagii hore ma ahee kan maanta jiro midabkiis unbuu bedeshay midab bedelashadan viruskan ku imaaday coronaviruskan sidee buu isku bedelay isbedelkan markuu sameynaya process noocoo buu adeegsaday waxyaabahaasa inagu ku falanqayn doonaa qodobka shanaadna waxaan kaga hadli doonaa horta coronaviruskan haddii qof adigu uu kugu daarto jirkaagana uu soo galo coronaha bilowgii muxuu jirkaaga ka qabtaa example qof yacni coronavirus qaba wuu kugu neefsaday ama meela kula nooshahay wuu kuu soo gudbiyey si un intaa wixii ka dambeeyay jirkaaga markuu soo galo unugyadaada ay qabsadaan coronavirusku intaa wixii ka dambeeyay protein noocee buu coronaha soo daayaa intaa wixii ka dambeeyay unugaada markuu coronavirusku uu baabi'inayo maxay unugyadaada difaaca jirka maxay qabanayaan xilligaas coronuhu may ka saaraan waayo virusyo kala duwana waxaa jiro jirkeena soo galo dumbaba laga saara hargabka oo kale muddo kooban uu qofku qabtay danna waa laga saaraa jirkii unugyada difaaca jirka coronuhu muxuu uga awood badiyaa yacni muxuu uga awood badiyaa corona waxyaabahaas inagu cell biology-giisan ka hadli doonaa maxaa daawo loogu soo saari layahay waayo cudurro badanaa dilaacay dadka intooda ugu badan xitaa waxyaabaha waxay ka mid tahay complete ay ka sameeyaan waxyaabo fake oo sal iyo raadba aanan lahayn qof markuu ka indhala-yahay nidaamka ama titleka pharmacology-gu backgroundka ka dambeeya ee daawo loo soo saaro waayo daawada iska soo saar ma aha waqtinkeedu waxay u baahan tahay inaan maap heli kartid viruskan ama waxani inaad fahmi kartid ay u baahan tahay maapkaas ma gaahaysid maapka halkaa ka geli lahayd iyo wadooyinkiis markaa kala fahamtid virusku sida ama halka checkpointiga aad dhiganaysid aad ku burburin kartid waa fahmi kartaa baan ku falanqayn doonaa daawadu maxaa cuduradani sida HIV-ga ama eboolaha ama coronaha iyo wixii la midka ahba daawo loogu soo saari layahay topigyadu waa intaan waxaan ku socdana waa saacad haddii saacadda la gaarana waan istaajin doonaa intaan u gudagelin ka hor topigyadani markaan anigu ka hadli doono kama taxadiri doono sida yacni waxyaabaha qaarkood inaan macneeyo maxaa la dhahaa qofka beginner miya qofka ku dhageysanayo yani waxaas dhan ma fiirin doono waayo topigan maaha topic basiga maaha topic qofka aas-aaska ama aanan waxba u bilownayn topic uu la qabsan kara maaha topiga erayada qaarkood ee ku jiro waxay u baahan yihiin qeexistoodaba inay topic tahay saas daraaddeedu ciddii basic u baahan ama waxyaabahani inay iska soo dhisto ama aas-aaska waxaan dhan inay fahamto day u baahan tahay ayagoo casharo badan oo bucket ah oo qofku iibsan karo waxay ku jiraan maxaa la applicationada in badan ay idin soo bandhigay qofkuna halkaas uu ka iibsan karo ayagoo bucket ah laakiin nidaamkaas ay ku socdaan waxaana ka faa'iideysan kara tobigyadan qofka cilmi baarista raba ama waxaan inuu wax ka ogaadana waayo waxaan ku wadi doonaa in af Soomaaliya kusoo gudbin doonaa waayo af Soomaaligu qofku ku fahmi doonaa waxyaabaha hadda aan ku qoray English ahaan just in adigana topiga hadii aad u baahato inaad baxthi garanayso aad raadiso si ay kugu fududaato in sarji garas ahaan English aan kugu soo qoran laakiin topigu gabigiisu waa af Soomaali laakiin tobigyadan qaybta English kan ku qoray mustaqbalka ma biyo ku anfici doonto hadii af Soomaaliyan kugu soo qoran in English ay tarjunto si aysan kugu adkaanin sadanadeedu ardayda medicine oo kale faa'iido badan u tahay qof walba rabana caafimaadka inuu wax ka bartana ama nafsadiisa inuu horumariyo muhiim u tahay ugu horeyn general introduction topigyada sidaan ugu koobnaan doonaan lama baahna wax in la xifdiyo lama baahna in wax la qorqorto just anigii dhageyso waayo wax walba ee fahamka ku saabsan oo dhan ana meeshan keenay sadanadeed looma baahno in wax soo xifdiso waayo aniga laftigeygu ma xifdisanay topigan waxaan kaga hadli doonaa dabeecadda microorganismka dabeecadda inagu aan ku noolnahay qaasatan dhulkan
taariikhda uu samaysmay ilaa maanta anwaac kala duwan oo nooleyaal ku nool bani aadamkuna uu ka mid yahay. anwaacdan kala duwan ee nooleyaasha dabeecadda saaran waxay isugu jiraan kuwa inagu aan naqaani iyo kuwa aanan aqoonin duurka isaga nool. sidoo kale waxaa ka mid ah nooleyaal inagu aanan ba aqoonin ama xitaa aanan arkin ee microorganism ah ilma aragta ah ka mid ah. nooleyaashan duurjoogta ah ama nooleyaasha microorganismka inagu hareeraheena ku nool qaab kale sometimes waa is effect garanaa, iyaguna anagu waan effect garanaa. waxaan ku effect garanaa chemicalskan inagu isticmaalayna ama qashimada aan tuurayno waxyaabo badan iyagu laftinkooda waan baabi'inaa waa dilnaa inagu aanan ka warqabin. iyaguna anagu markayna soo attack garanayaan sida virusadan oo kale coronaviruska, bacteriada iyo cudurrada la midka ah inay nagu dhacaan sabab ay u tahay. sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan ku dhaho bani aadamku kaligiis dhulka ma saarno, maadaama silsilada bani aadamku 4.5 bilyan sano ka hor wax samaysma ay tahay. silsiladaasi dheer bani aadamku sidoo uu soo tadawuray oo uu soo hormaray anwaacda kala duwan ee nooleyaashu sida u kala duwan yihiin qaarkood kale. noole walba wuxuu la qabsaday hadba deegaanka uu ku nool yahay, halkaasoo adaptation la sameeyay, halkaasuna noolaha la falgalay, halkaasuna noolaha maxaa la dhahaa uu la qabsaday yani noloshiisu. sidaas daraadeed bani aadamkii anwaacda kala duwan ee nooleyaashu maadaama sida adaptation ay ula sameeyeen deegaankooda ay ku xiran tahay isku mid maaha caafimaadkooda, noloshooda, borotiinadooda wax walba ku kala duwan yihiin. kala duwanaanshahana waxay keenaysaa in bani aadamka ama nooleyaashu qaarkood kale aysan isku adkaysi ahayn. waxaa suuragal ah cudurrada ku dhaco xayawaanada qaarkood bani aadamka inuusan ku dhicin. waxaa suuragal ah ama xitaa iska badaa xayawaanada bani aadamku qaarkiis kale waxaa suuragal ah midkan cudurka markuu ka raysanayo qaar baa laga yaabaa kansarku inay ka kaceen cudur kansar inuu ku dhacay uu ka boodo qofkii normal kansarka isagoonan daawo lahayn. qofbaa waxaa laga yaabaa cudur caadi ah inuu ku dhacay daawada uu isticmaalan uu ku caafimaado, qofna daawada uusan ku caafimaadayninba. tanina waxay la xiriirtaa bani aadamka borotiinada uu soo saaro. bani aadamku jirkiisu qofkan kale sida ugaga duwan yahay, dhiiggaada sida u shaqeynaya kana sida u shaqeynaya, kala duwanaanshaha idin dhexeyso waxay dhalinaysaa in wax badan ee anwaacda kala duwan ee nooleyaasha ay ku kala duwanaadaan. haddaba marka waxaa rabaa inaan ku fahamsiiyo kala duwanaanshaha nooleyaasha qaarkood qaarkaas sidan ugu dhexay ee baahsan ayaa sometimes waxa uu sabab ugu yahay cudurradii ku dhici jira xayawaanadu in bani aadamkuna ay usoo gudbaan, khaasatan xayawaanada duurjoogta ah cudurradii ku dhici jira. ama xitaa si ka fudud bisada maanta inagu aan dhaqana ee guurjoogta ah iyo bisada duurjoogta ah isku mid ma aha, way kala duwanta. eyga maanta anaga nala nool ee anagu aan dhaqana ama xataa wadamadan laga dhaqdo iyo eyga duurjooga ah isku mid ma aha, way kala duwan yihiin. yani waxaa attack badan oo dadka cunayo oo dilayo eyga duurjooga ah sababtoo ah mujaadalada noloshu ku jira kaasi. bani aadam lama dhaqmin, bani aadamku kan la dhaqmay, bani aadamkuna dabeecad fahmay, bani aadamku oo kale inuu u noolaado isku dayaya si kastuu uga duwan yahay. laakiin midkan kale maadaama uu ka duwan yahay dabeecaduna maadaama duurjoog ay tahay wax dabiib la dhaho ama caafimaad la dhaho ama sida bani aadamku u horumari karo ma jiro. xayawaanadu hadday xanuunsadaan qaarkood qaab kale ma dabiibaan, yani noolaha sidaas unbuu ku baaba'aya ama uu ku dhimanaya. sidaas darteedu nooleyaashaasi dhibkaasi iyo bacteriadaasi iyo microorganismkii wax walba baransiit ah maadaama jirkooda uu la qabsaday iyagu way ka awood badan yihiin nooleyaasha kale, yani way naga awood badan yihiin, way nagana daaqo badan yihiin nooleyaasha duurjoogta ah. sababtoo ah iyagu waxay la qabsadeen adaptation la sameeyeen meel halis ku ah bani aadamka noloshiisa caafimaadkiisa, maadaama adaptation sharciyadeeda iyo qawaaniinteeda kama hadlay hadda ama way la qabsadeen. maadaama la qabsigaasi ay yeeshteen waxay advantage u yeeshteen inay dabeecadaas la falgalaan, noloshooduna sidaas ay ku socdaan. so cudurrada qaarkood bani aadamka ma ahe waxaa kasoo qaadayo cayayaanada yaryarka ah, waxay kasoo qaadayaan ama shimbiraha waxay kasoo qaadaan xayawaanadii duurjoogta ah. xayawaanadani marka iyagu kasoo qaadaan waxay usoo gudbayaan cayayaanadii yaryarka ama waxaa loo soo gudbinaa shimbirihii. intaa waxay ka dambeeyeen bani aadamkii ama ilmihii yaryarka effect garaynayaan. u fiirso cudurkan maaha cudur bani aadamka dhexdiisa lagu dhex arki jira maaha, duurkuu ka imaaday meel bacteria iyo viruska iyo waxyaabaha microorganism ama xataa parasitka uu ku badan yahay. cayayaanada kale ku nool ama nooleyaal kale ku dul nool ay ku badan tahay buu ka imaaday cudurkan. kadibna bani aadamkii usoo gudbay. waxaana kuu keeni doonaa misaal badan ama cudurrada intooda ugu badan aan kuusoo bandhigi doono topican
waa cudurro example u noqon doona in duunka laga keenay sida viruskan oo kale, sida ebola oo kale iyo HIV oo kale, cudurro la midka ahba waxaa laga keenay asalkooda duunku ka imaaday, yacni duur joogta xayawaanada ahayna bani aadam kusoo gudbiyeen. laakiin sida dabiiciga ah xayawaanada cudurrada ku dhaco bani aadamku cudurrada ku dhaco looma baahna qaarkood qaar kale inay isqaadsiiyaan same maaha, sababtoo ah xayawaankana cudurku ku dhaco iyo adiga cudurka kugu dhacay inay kala duwanaadaan waxa sababaya waxaa waaye xayawaankani adiga isku chromosome ma tihiin, haddii aadan isku chromosome ahayn isku protein ma tihiin, haddii aadan isku protein ahayn isku cell receptor ma tihiin, haddii aadan intaas ku kala duwan tihiin viruska asaga qabsan kara adiga kuma qabsan kara. saas daraadeedu bani aadamku cudurrada ku dhaco iyo xayawaanada cudurrada ku dhaco same maaha, laakiin cudurrada waxay kuu keenayaan iyaga waxba aanan ka taraynin sometimes, cudurro ayaga aan waxba ka taraynin sometimes kuu keenayaan kadibna adiga ku effect garanayaan. waana midda maanta ka jirto coronavirus marka la gaaro topigiisuna example kala duwan kaaga keeni doonaa in nooleyaasha cudurrada ku dhaco bani aadamkuna aysan effect garan, xataa hadday effect garanayaan saameynta uu bani aadamku uu ku yeeshanayo iyo xayawaanada uu ku yeeshanayo inay kala duwanaanayaan baan ku keeni doonaa haddii la gaaro. laakiin topigan hadda waxaa rabaa inaan ku fahamsiiyo oo keliya ah microorganism iyo dabeecadda marka la joogo waxyaabo badan oo kala duwanaansha jiro, kala duwanaanshahana sida u kala duwan yihiin baa qaarkood qaar kaletana isku effect garanayaan, isku effect garanaytaana waxay keenaysaa in nooleyaal kala duwanna caafimaadkoodu halkaasi ay ku waayaan. haddaba marka dabeecadda iyo microorganism markaan ku leeyahayna waa inaad fahamtaa microorganism bacteria ka mid ah, fungiha ka mid ah, algaha ka mid ah, amoebaha ka mid ah, brontistaha ka mid ah, yacni waa inaad fahamtaa microorganismku waxay tahay waa microorganism nooleyaasha ilma aragtada ah. saas daraadeedu nooleyaasha ilma aragtada ah ee kala duwan bani aadamku sidaasay u effect garanayaan noloshooda. sometimes ha kasoo qaadaan cayaano yaryar ah ama iyaga si toos ah kugu soo gudbiyaan, waana xitaa sababta inta badan dhaqaatiirtu ay ugu digaan in xayawaanada infectionadooda la iska ilaaliyo, waayo xayawaanada sometimes allergy kugu kicinayaan nuurtaada ama waxaa laga yaabaa xataa dooradaada inay allergy adiga kugu kicisaa laga yaabaa, waayo waxay ayada kugu soo xambaarayso sometimes caafimaadkeeda ku jiro ayadu ma effect garanaya kala duwanaanshaha idin dhexe, laakiin adigu waxaas halisay kugu yihiin waxay iyadu kuu keenayso kama warqabto iska soo qaaday oo wax walba virus ah. sababaha ugu badan wadamadan Afrika iyo wadamadan bariga dhexe cudurrada inta ugu badan waxyaabaha uga soo baxaan qaasatan China uga soo baxaan waxaa kamid ah xayawaanada duurjoogta ah ban walba inay la falgalaan, ban walba inay isku dayaan inay u dhawaadaan bani aadamkuna taariikhdiisa hore haddii aad dib u fiirsana mooran uu dabeecadda usoo dhawaaday xayawaano uu aan loogu talagelin ama noloshiisu dhan ka fog mooran isku dayay inuu la falgalo, mooran isku dayay inuu usoo dhawaado caqabadaha uu kala kulmay. taariikhda bani aadamku waxay xusaysaa dhimasho madow inuu bani aadamku uu kusoo dhamaaday, waayo aad iyo aad u baabi'inayaan nooleyaashani waxaa jinkooda laga helo, nooleyaashan siday u nool yihiin noloshoodii noloshan siday u kala duwan tahay baa annagoo dhan inaan u kala dheeraano caafimaadkeena uu ku jiraan. saas daraadeedu wadamada Afrika iyo qaybo kamid ah Aasiya inta badan waxaa ku badan in guriga hadduu dabaqa saaran yahay hoosna in ay ku nool yihiin maxaa la dhahaa xayawaano ay ku nool yihiin, ama xitaa qaybo badan oo guriga kamid ah in gurigii bani aadamka iyo xayawaanadu ay isaga wada nool yihiin. saas daraadeedu xayawaanadani bani aadamku uu dhaqanayo waxay ku yihiin halis bani aadamku u qabsan. kama wada bani aadamku inuu ka fogaado xayawaanadan uu dhaqanayo ama bani aadamku xayawaanada inuu ka fogaado, laakiin saameynta ay keenayaanna ban walba waa in muxuu ahay aad ku xisaabtantaa. coronavirus iyo coronaha cusub. okay, coronavirus asalkiisa markii ugu horeysay dunida 1960kii la arkay. xilligaas wuxuu sababi jiray hargab khafiif ah, yacni hargab caadi ah, qofka 2 isbuuc 14 maalin haddii uu qabto wuu ka caafimaadi jiray sida influenza oo kale. qofka 2 isbuuc uu hargab uu qabanaya uu qunfacaya madaxa xanuunaya intaa waxay ka dambeeyay hargabku ka bogsadaa sida normalka. coronavirus kuna kama duwaneen sidaas normalku ah bani aadamku qaban jiray waa laga bogsan jiray wuu socon jiray, bani aadamku effect badan kuma lahayn. laakiin 2003 haddana China mar labaad uu ka dilaacay, ma aha hadda kaliya 2019 kan coronavirus kan soo baxay ma ahayd 2003 gani wuu jiray. 2003 China cudurkan banka uu ka dilaacay, astaamihii lagu yaqaan ma ahayd astaamo kala duwan ayaa haddana lagu arkay. waa corona family
laakiin effective uu ku geysanayo iyo saameynta ama bahda classification-ka ee coronaha kamid ee kusoo ataaganaysayba kolkan ka duwan kii aad taqaanay laakiin waa isku wada family saas daraadeedu 2003 China ban kale uu ka dilay inta badan waxaa la sheegaa virus biologically ama wax biology virus microbe waxyaabo sada u baahan tahay inaad ogaatid ama hadii u baahan tahay dhulka ama dunida halkay ka soo galaan waa China hadii laakiin virus computer iyo software iyo waxyaabo qalab hacker u baahan tahayna mushkil ka imaanaya China waxa ka imaada viruska biologically oo caafimaadka iyo waxyaabahaas halista ku laakiin waxyaabaha qalabka iyo tiknoolajiyada iyo software-da halista badan waxay ka imaadaan mushkil la dhahaa yani China ayuu hadana ban kala ka dilaacay inta wixii ka dambeeyay adduunka oo dhan uu ku faafay viruskan waxaana loo bixiyay SARS waxa laga yaabaa corona marka maqashay SARS inay maqli doonto sidoo kale tan waxa maqli doontaa MERS coronavirus loo yaqaan erayadan waxyaabaha laga soo gaabiyay acute severe respiratory virus syndrome waaye waa ku qoray SARS loo yaqaan cudurkan bankan uu China ka dilaacay sidoo kale tan 2012 kana coronavirus kan kale ee MERS loo yaqaan isagana wuxuu ka dilaacay Sacuudiga kolkaan wuxuu sababay pneumonia sanbabada qofku ka baabi'inaya kilidihu qofkii dilaya oo baabi'ina howlgab ka dhigaya yani iyaguna markan corona soo guuda galna faahfaahin doona laakiin introduction keenu waxa muhiim ah inay ogaatid corona wax cusub maaha waligiis uu jiray laakiin uu noo midab bedeshay midab cusub buu soo gashtay xayawaanadii buu ku dhici jiray xayawaanadii bani aadamkii u soo gudbiyeen xayawaanadii bamatiinadoodu isticmaalay corona midab cusub oo yeestay awood wuxuu yeestay bani aadamkan inuu kolkani uu dili karo okay waxaan hadda falanqeyn doonaa cudurrada ugu halista badan ee taariikhda bani aadamka soo maray imagine bani aadamku coronavirus maanta waa cudurka cagaha istaajiye alabaamada meel walba thermal camera lagu xiray oo qofka maxaa la dhahaa la kontroolayo qandhadiisa heerka ay joogto kadibna qofkii laga shakiyo waa la qabtaa qofkii lagu arkana meel qaasa lagu xiraa cudurkan maanta bani aadamku gilgilay oo inay ka cabsadaan oo waliba qof walba bani aadamku qaan kale xiriirkii ka dhaxay iyo uu soo dhaweyntii iyo muhabbadi kala fogeeyay ee coronaha isagu saameyntu maanta geystay coronaha aad u yartay laakiin cudurro waxa jiro malaayiin dad taariikhda bani aadamka baabi'iyay waa cudurkan loo yaqaan dhimashadii madoobeed hadii maanta Google-ka ku sameeyay dhimashadii madoobeed ama Black Death waxa ku soo bixi doona cudurkan bani aadamku ama xitaa yurub baabi'iyay cudurkan waa cudur yurub oo dhan baabi'iyay yani yurub 30% baabi'iyay cudurkan dartiisa sida maanta inaga dhacdo markay dhacdo ama cudur la arko dawladda wala ka dambeysay ama cid wala ka dambeysay sidaan loo dhahaba anagu waxyaabaas aan soo saarno cudurkan xilligiisa markii bani aadamka oo dhan uu baabi'inayo la arkay daawada aan loo heynin kumanaan kun oo qof loo dilay dartiisa sadaradeed cudurkanna waxa sababay waa bacteria oo Yersinia pestis loo yaqaan imagine waa gram negative bacteria waa gram negative gram negative bacteria ayaa waxay baabi'isay 200 oo milyan oo European ah oo qof ay baabi'isay waa cudur bani aadamka taariikhdiisa ugu saameynta badnaa waa Black Death asagoo dhan taariikhdii ugu horeysay ee uu bilaabmayna 1347 ilaa 51 waayo cudurkan intaan muddadan kooban oo kaliya socday wuxuu baabi'iyay 200 oo milyan oo qof ah Yurub oo dhan uu baabi'iyay Yurub oo dhan banku cudurkan sida u baabi'iyay waxa la sheegaa 30% Yurub oo dhan inuu cudurkan baabi'iyay sadamadeed cudurkan xikaayad qaas u leeyahay documentary badan ay jiro buugaag badan oo cudurkan kaliya ka faaloonay jiro laakiin anaga saacadaynu maadaama ay soo dhowdahay introduction ay tahay cudur walbo marka laga hadlayo topic qaas in loo sameeyo ay ku haboontahay cudurkan waxa la sheegaa saameyntan weyn leh dawladii ugu horeysay cudurkan xakameysay inay noqotay dawladda Itaaliya waxay sameysay wax weyn ma aha kaliya quarantine sameysay cudurka inuu faafo kaliya diiday qofku ku dhacay haduu dhimanayo xitaa dad kale uu san baabi'in ahaan way xirtay waxayna adeegsatay mask hadii xitaa cudurkan kaliya asarjiganayso ama Black Death waxa arki doontaa waxyaabo badan oo runtii ka cajibiyo banku waxaan u baahanahay inaan ku fahamsiiyo waxyaabo ilma aragta microorganism micro level
oo isha bani aadamku aanan qaban karin baa waxay dilaysaa 200 milyan oo qof ah. ma aha 500, ma aha 6,000, ma aha 7,000 iyo 100,000, waa milyan. ma aha 100 milyan, waa 200 milyan oo qof insha Allah. cudurkan runtii bani aadamku waxay halkan ay ka fahmi kartaa daciifnimadiisu. bani aadamku waxyaabo mikro ah baabi'inay, waxyaabo mikro ah noloshiisa dhan muxuu ahaayay isagoo dhan dhulka dhan baabi'in kara. anigu waxaan qabaa corona kaliya ma ahe dabeecadu waxa jiro virusyo ama xitaa bacteria nolosha meelayahan dhan inay ka jirta canqaladeyn karo, inagoo dhan wada baabi'in kara. yani bani aadamku wixii la fahmo haddii uu sameeyo oo si sax ah caafimaadkiisu uu ilaashado dabcan wuu ka badbaadaya. laakiin nooleyaashan ilma aragtada ah maadaama aanan aqoonin oo aanan arki karin cidda ay soo ataagarayn inagu aanan ina fahamna ay nagu adkaanayso, aad iyo aad ay caafimaadkeenu halis weyn ugu tahay. cudurkan sidaa u jeedidba waa shaxda iyo maabka sida uu ku bilaabmay, taariikhdii uu socday iyo sida uu adduunka ugu faafay, yani khaasatan Yurub uu uga faafay baa arki kartaa. cudurkan waa cudur runtii aad iyo aad cajiib u ah oo taariikhda bani aadamka oo dhan wax badan gelgelay dhab ahaantii. okay, cudurrada ugu halista badan ee taariikhda sidoo kale waxaa ka mid ah Spanish flu. dabcan cudurradu way badan yihiin, laakiin anigu qeybaha ugu muhiimsan ama cudurrada macquulka ah kaliyan ka soo qaatay. dabcan anigoo eegay dhimashadooda waa intee malaayiin cudurrada dishay oo kaliyan soo qaatay. cudurro badan oo intan kasii daranna waa jiraan, laakiin haddii aad sarjiganayso waa heli kartaa. cudurkani Spanish flu ama hargabkii Isbaanishka wuxuu ka mid yahay cudurradii ugu saameynta badnaa ee taariikhda bani aadamku. waana hargab, yani ma aha cudur xataa cudurrada kale ka duwan, waa hargab iska caadi ah. viruskan H1N1 baa keenay. intaa wixii ka dambeeyay cudurkan qofkii markuu ku dhaco sida hargabka kaleete qandhadiisa ziyaadayso, yani sida hargabka kale astaamaha hargabku leeyahay. qofkii hargaba baabi'inay dilay. imagine hargab baa waxay u dhimanaysaa 100 milyan oo qof ah. dowladuhu oo dhan waxay u istaagaan hargab kaliya inay xakameeyaan alaboorada meel walba. bani aadamku karantiina adduunka oo dhan laga wada dhigo, meel walba in la wada xiro. bani aadamku xiidankiisa qaar kale in la kala ilaaliyo. hadday gabadha qabto ninkeeda in laga wado, hadduu ninka qabo in yani familka oo dhan in la kala soco la kala leexiyo. waxa sababaya waa virus ilma aragtaa oo bani aadamku soo weeraro oo kaliya jirkaada baabi'inaya. waa nooc kamid ah daciifnimada bani aadamku. cudurkan dartiisa 100 milyan oo qof u dhimatay. tirada ku dhimatay waxay ka badan tahay dagaalkii adduunka intuu ku dhimatay. xaqiiqdii dagaalka dunida oo dowlado kala duwan ay isdagaaleen oo hub la isku adeegsaday, dad badan ay qaxeen, qaarna gaajo ay u dhinteen. u fiirso hubkan la tuuray iyo taangiyadan iyo waxyaabahan atmosfeerku bay wasakheynayaan mooyaan effectiga ay geysanayaan waa effecti aad u yar marka loo fiiriyo ama loo eego ama loo bandhigo effectiga uu geysanayo virusyada noocan oo kale ah, ama virusyada ama waxyaabaha ilmaaragtada ee biology, hubka biology-gu. topic ku saabsan horaanna waa u duubay, waliba laba muuqaalan ka duubay. haddii aad daawatay wax badan kolay inaad ka fahamto waan rajeynaya. sidaas daraadeedu bani aadamka oo dhan hargab baa baabi'inay. tirada ku dhimatay maadaama ay ka badan tahay dagaalkii koobaad ee dunida iyo kii labaad marka la isku geeyo hargabkan dartiisu, waxaa halkaas ka fahmi karnaa in hargab aad iyo aad u daran inuu yahay. hargabkan waxyaabaha cajaa'ibta uu leeyahay waxaa ka mid ah markuu jinkaagu soo galo, unugyada difaaca jinkaaga waxay bilaabayaan inay la dagaalamaan. moran ay la dagaalamaan, qandhada mujaadala dhacayso, dhiigaada barashankiisi wuu ziyaadaya. qofkii qandho badan, qofkii wuxuu dhimanayaa qandho. yani qofkii jirkiisu uu difaaciisu adag yahay, cudurka iska caabin ku sameeya, qofkii qandhadiisa ziyaadayso. sababna waxay u tahay qandhada qofkii inuu dhinto. dadka ugu caansan ee taariikhda bani aadamkuna la xusay halgamayaasha ah waxaa ka mid ah ku dhintay Max Weber. Max Weber waa aabaha anti-positivistic psychology loo yaqaano maanta. waana nin Germany ah asal ahaan, waana dadka psychologistuhuyaasha ah. dabcan waa nin ay magaciisu ay maqleen, waa aabahoo dhan. sidoo kale boqorkii Isbaanishka ahaa ee 13aad ee Alfonso ayaa ku dhintay. sidoo kale waxaa ka mid ah dadku cudurkan dartiis way badan yihiin, laakiin kuwan waa kuwa uga caansan oo la garan karo. waxaa kaloo ka mid ah hogaamiyihii Turkiga ee Mustafa Kemal Atatürk, isagana Spanish flu buu dhintay. cudurkan Spanish maxaa loo dhahay? Spain baa keentay. asal ahaan Spain ma keenin, laakiin siyaabo kala duwan oo loo tacliiqiyaa. Jarmalkii ugu horeysana Mexico lagu arkay, laakiin tacliiqinteedii iyo ka hadalkeedu
haddaa baxti ganacsi waa heli kartaa. qodobka saddexaad ama cudurka saddexaad viruska HIV wuxuu ka mid yahay cudurrada taariikhda bani aadamku halista weyn iyo saameynta weyn ku leh. cudurkani bani aadamku wuxuu uga soo gudbay daanyeerada. imagine daanyeer galmo ama saksi lala sameeyey buu bani aadamku uga imaaday. daanyeeraa qabay waagii hore, laakiin daanyeerkani maadaama loo dhawaaday isaga anaga noo keenay, isagaa nagu daantay, inaguna adduunkan ku faafinay. waa cudur la sheego daanyeer la kufsaday in muxuu ahaay cudurkani uu ka imaaday HIV. dabcan qisadan ma sax baa ma qalad baa waa wax la sheega, laakiin asal ahaan cudurkani HIV bani aadamku ma lahan, daanyeeradu ku dhacaa. waliba category kala duwan oo leeyahay evolution qaas oo isagana leeyahay, laakiin horaan muuqaal aan ka sameeyo jiro oo HIV ka hadlaayo. muuqaalkaasi haddii aad daawato wax badan oo ku kala furmaysaa, mawduucan waa fahmi doontaa. waxaa soddonkii u dambeeyay oo keliya u dhimatay 36 milyan oo qof ah. u fiirso, HIV-gan 36 milyan oo qof ah u dhimatay. daawo ilaa maanta looma hayo. waliba dunida tiknoolajiyada, caafimaadka, biochemistry-gu, biomedicalku, wax walba ay horumareen, ilaa maanta daawo looma hayo HIV. sababaha aanan loogu helinna topiga u dambeeya maadaama aan kusoo qaadan doono, waxay ka mid tahay waxyaabaha bani aadamku runtii noloshiisa halis weyn ku ah. ilaa maanta HIV-gu keliya ka hortagaa loo hayaa, ka hortag qofka inuu ka hortago. laakiin maanta waxaa mahad ah in HIV-gu aanan loo dhimanayn sidii hore. waagii hore HIV-gu waxaa la aaminsanaa inuu cudur dilaaya, laakiin maanta HIV-gu dilaa ma aha. laakiin qofku isaga HIV qaba, jirkiisii si uusan dilaa ugu noqon, asal ahaan wax uu ku dilayaa, laakiin daawo akaashanaysaa jirto aa uga hortagi kartid in ay kusoo ataagamay. laakiin daawo aa uga hortagi kartidaa jirto, laakiin daawooyin aa uga hortagi kartidaa jirto. adoo HIV-gana qaba waa noolaan kartaa, waliba positive aa noqon kartaa. wax mushkilo ah oo muxuu ahaay aad qabtidna ma jirto haddii HIV-gu uu kugu dhaco. qof walba oo HIV ku dhacayna ma aha qasab in AIDS uu ku dhaco. hadda topiga ma inaan sii galgalo ama mawduuc kale horaan uga hadlay. cudurka kale ee afraad wuxuu ka mid yahay ama daacuun. daacuunku saa u taqaanay, daacuunku waa cudur bani aadamka oo dhan baabi'iyey. asal ahaan daacuunku waa jeermis ka imaanaya waxyaabaha wasaqda ah inagu aan tuurno inaan dib u isticmaalno. waayo waagii hore 1800 iyo wixii ka horreeyay bani aadamku ma aqoonin saabuunta, ma aqoonin shaambada, waayo waxyaabahaas dhan ma jirin oo lama isticmaali jirin. bani aadamku maadaama uusan horumarsaneen, qofkii dharkii biyihii uu ku dhaqday baa haddana bar kale wuxuu isticmaalayaa inuu cabo, ama wuxuu isticmaalayaa xitaa inuu ku qoysto, ama xitaa wuxuu isticmaalayaa inuu alaabtii uu ku dhaqdo. ilaa maanta laftinkeeda qaybo badan oo Afrika way ka jirtaa, khaasatan wadamada cudurrada inta badan ay ka soo baxaan. waayo qofkii nadaafadii iyo wixii oo dhan ma fahamsano. haddii qofku cilmiga uusan kala fahamsanin, waxaan saameynta ay leeyihiinba uusan aqoonin, يعني isagu waa qof iska normal ah, wuxuu arkaa biyaha israafka ka taxadan ahaan xataa inay taawala waa suuragal. dharkii wixii ay ku dhaqeen ayaa waxa uu isticmaalay inay ku qubaystaan, ama waxa uu isticmaalay inay alaabta ku dhaqaan. hadday suuragal tahayna waxyaabihii wasaqda ahna wabiyada lagu soo tuura, danna qayb kamid ahna qof bani aadam ka cabay. tanina bani aadamku waxay ku naqatay jeermis caafimaadkiisii waxyeeleeyay, waana daacuunku mar labaad uu soo laabtay. historigiisii waa daraasayn kartaa. daacuunkii saddexaad waxyaabaha ugu waaweyn ama markii ugu horeysana waxaa lagu fakarayaa in musiibo weyn oo ka dhalatay Hindiya inay tahay. Hindiya waliba ilaa maanta waxaa la sheegaa Hindida webiga muqaddasku ah ama goobta biyaha ku jira ee muqaddasku ah ee iyagu ku gubaan dadka dhintay ee ku gubaan. yani Hindidu dhaqankooda ama sida religionkooda ay sheegayso, qofka hadduu dhinto meel webiga la keenaa, halkaasina waa lagu gubaa. يعني meedadku waa la gubaa, jannada inay aadayaan ay aaminsan yihiin, waxba problem ah kama qaban, iyaga waraali ka ah, saasay aaminsan yihiin. waxaa lagu fakiraa ama la sheegaa webigaasi bacteria badan oo bani aadamku halis weyn oo caafimaadkiisa ku ah inay jirto. baran walba waxaa suuragal ah India iyo China cudurro halka ugu waaweyn ay ka soo baxayaan, khaasatan cudurrada dilaayaasha ah waa lagu fakiraa, iyo Afrika. saddexdaas meel waa saddexda meel ugu halista badan sida la sheego. cudurka u dambeeya waa malaria, waa cudur anagu naqaano. cudurkan duumada ee malaariyada waa cudur ku dhaca dadka oo ay faafiyaan yani koox kamid ah parasitadu cayaanada kale ku dul nool. waa naqaanaa malaariyadu saameynta leedahay.
laakiin taariikhda bani aadamku intee qof bay dishay haddii aad isweydiiso waxaa arkaysaa lambano waaweyn 100,000 1400 75,000 yani malaayiin qof ay ku dhacdaa 100,000 oo qof u dhimatay malaria darteeda yani taariikhda malaariyadu waa taariikh halis badan malaariyadu bani aadamku waxa qaadsiyo plasmodiumtu waa koox kamid ah banaasidyada cudurrada keena waa cudur qandho daran leh astaamaha dabcan waa naqaana malaariyada dhadigaana keento cudurkii soo qaadaysa bani aadamkii ku infect garanaysa bani aadamku dhiigiisa qaadsinaysa taariikhda bani aadamku cudurkan malaayiin qof u dhinteen muushka gudaheeda dagaalkii koowaad kadib waxaa jirtay 5 milyan oo qof oo malaria qabta 60,000 oo qofna malaria darteeda u dhinteen muushka malaria oo maanta adduunka xitaa qaybo badan oo kamid ah laga ciribtiray ilaa wadamo yar Soomaaliya kala malaria waa laga yaabaa familkiiba hal qof inuu ku dhaco bishiiba inay iska soo laalaabato ama tani waan garan karnaa laakiin adduunku waa laga ciribtiray malaria wax la dhahay adduunka kama jiraan waa horeytaa la kansalayba tanina horumarka dadaal badan dabcan bani aadamku geesto waa iskaashi badan la geliyo waayo intaan qof inay u dhintaan cudurkan nolosha bani aadamku dhan wax gilgilow waa qof walba wuxuu istaagay malaria inuu ku shaqeeyo malaria inuu ku dul fakaro malaria inuu baxthi garaayo oo cid walba cilmiga uu wax ka taqaano malaria uu istaagtay dana adduunka dhan in laga ciribtiro oo talaalo casri ah loo soo saaro ba ay sabab u noqotay sanadkii 1934 3 milyan oo qof oo cudurkan qabtay ayaa 100,000 oo qofna Ceylon ugu dhimatay 100,000 oo qof ugu dhimatay Brazil sanadkii 1938 diina 14,000 oo dhimatay cudurkan dalka Masarna waxa uu dhimatay 12,000 oo qof ah Ethiopia waxa uu dhimatay 15,000 oo qof ah ajiib afooyinka dabeecada dhulgeedinada dhismooyinka oo soo dima wabiyada oo soo fatahaada tsunamiga waxyaabahaas oo dhan ee dagaalada dhaca marka laga waxaas inkaas ku geeso saameynta cudurrada dilaaga ah ee qaadatan biologigu ay geysanayaan ka badan haddaba marka hadii aan soo khulaasayno cudurradan oo dhan ay shantahay aan ku soo gudbiyay way ka badan yihiin laakiin shantani waxay ahaayeen shantan nolosha bani aadamka oo dhan gilgishay coronavirus-kuna waa same isaguna wuu la mid yahay coronavirus-ku sida malaayiin tan qof bay u dhimatay kumanaan qofna uu baabi'iyay isagana wuu baabi'in karaa coronavirus kaliya sameeyay laga yaabay in isagu xataa mutation kale uu galo oo noqdo midab cusub isaga uu ku imaado ama laga yaabay virus kale inuu soo baxo qofku waxa muhiim ah bar walba gangaanka degdega iyo caafimaadka basigiisu inuu iska soo dhiso caafimaadku basigiisu hadii aad taqaano cudurrada waa ka badbaadi kartaa cudurrada waa iska ilaalin kartaa cudur meesha uu kaaga imaanayo waa garan kartaa waayo gangaanka degdega hadii aadan aqoonin iyo basiga caafimaadku wax badan oo noloshaada kamid ah kama taxadari waayo hubkii biologiga ka maqan hubka biologiga haduu ka maqan yahayna muxuu ahaay awood badan ma lihid wax badan ka maqan saas daraadeed coronavirus-kan waa la mid tani waxay ahayd topic introduction ah oo kooban oo kugu fahamsiinaya kaliya cudurrada dunida Soomaaliya coronavirus-kan inay la mid ka yihiin sidoo kale tan coronavirus-kuna sida Ebola oo kale uu istaagi doono sanad kadibna isagoo nooc kale uu soo bixi karo muxtamalan ama laga yaabay daawadii soonta sanad gudaheeda daawadiis lama heli doono lama ba heli karaba muxtamalan ila 5 sano inta wixii ka dambeeyay hadda u badato talaal fudud la heli doona oo sida HIV oo kale aanan daawo rasmi oo official aanan ahayn ala kulli xal topigeena maanta halkaas uu ku kooban yahay waa inuu topiga xiga iyo coronavirus. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.